magacaygu waa Nadiifa Xasan Saalax waxaan ka mid ahay dhalinyarada degmada Kismaayo haddii aan hore u galo wax badan ayaan ka faa'iidnay mashruucan waxaan ka faa'iidnay isdhexgalka bulshada iyo nabadeynta seminaaro badan oo leadership ku saabsan inay dhalinyaro hore aan u hadli jirin ama hore loo arki jirin inay hadda banaanka iskeeneen oo siyaasadda ay ka qayb galeen oo wax walba macnaha ay ka hadli karaan magacaygu waxa la yiraahdaa Cali Cabdullaahi Daahiye mashruucan wuxuu faa'iido u leeyahay bulshada ama dhalinyarada reer Kismaayo markii la sameeyay seminaaro iyo wacyigelin barnaamijyo badan la sameeyay waxay maanta marayaan heer ay isdhexgal iyo maaragtay aqoon kororsi ay gaaraan ma sha Allah oo maanta higsigooda uu noqday in ay isu soo sharaxaan xildhibaannimo iyo bulshada sida hogaankooda u soo hayeen meel ka sii wanaagsan inay gaaraan sidii nabadeynta dalka ay ugu shaqeeyaan magacaygu waa Ismaan Maxamed Cabdi waxaa ka mid ah barnaamijkan waxyaalaha laga faa'iiday seminaaro ama tababaro noocyo kala duwan sida in dhalinyaradu la baro sida loo hogaamiyo dhalinyarada ama hogaanka waxa uu yahay dhalinyaro fara badan oo aan aqoon way isku barteen dhalinyaradu waxay kale ka faa'iideen sida dhalinyaro kale loo wacyigeliyo ama looga soo celiyo fakaro kale ay aamineen gabdhaha Soomaaliyeed horta marka hore siyaasad kama qayb gali jirin waxay iska ahaayeen xaafad joog gabdhaha hadda waxaan ku booraaminayaa in ay barnaamijka u soo baxaan oo ay siyaasadda ka qayb galaan aniga kula hadlaay waxaan faa'iidada ii ahaa oo aan kala kulmay aqoon kororsi sida seminaaro aan galay waxyaabo badan baan kala kulmay waxaan ka faa'iiday isdhexgalka bulshada macnaha dhalinyaro badan oo hadda u tartamayso xildhibaannimada oo aan talooyin badan ka siiyay hadda wacyigelin badan marka la sameeyo dhalinyarada hadda meesha hiigsanayso waa nin iyo reerka dariskiisa inay saas isu qaraabeystaan insha Allah marka waxaan ka rajaynayaa guul fiican in laga gaari doono mustaqbalka haddii Allah idmo in lagu daro maxay xalinta khilaafaadka yaan codsanayaa dhalinyaradu inta badan maanta Jubbaland waa wada musharaxiin dhalinyaradu taa waxay cadeen u tahay in ay dhalinyaradu inta badan ay arkeen in ay maanta ahmiyad fara badan ay u leeyihiin siyaasadda maanta jirto marka taasina waxa horseed u ah ama hormuud u ah barnaamijyada inta badan ay qabanaysa Wiber